بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا جانلك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso xanuun badan oo dhex martay wiil iyo hooyadii. Laba wiil ayaa waxay fadhiyeen xeebta badda, waxayna cunayeen casho. Waxa u timid haweeney waayeel ah oo ay ka muuqato gaajo daran, waxayna bilowday inay cunayso waxyaabaha iska tuuraan. Labadii wiil mid ka mid ah ayaa la hadlay ku yiri, "Ma gaajo ayaa ku hayso?" Haweeneydii ayaa ku tiri, "Waxaan halkan joogay maanta oo dhan, mana helin wax raashin ama biyo ah. Wiilkayga ayaa halkan i fadhiisiyay, uuna iga tagay, wuxuuna ii sheegay inuu ii soo laaban doono uuna halkan iga kaxin doono." Labadii wiil waxay haweeneydii siiyeen raashin, wayna cuntay. Markii la gaaray waqti dambe qabowgiina uu sii batay, ayay labadii wiil alaabtoodii soo qaateen, waxayna isku diyaareen bixitaan. Balse waxay dareemeen inaysan habooneen in hooyo waayeel ah oo xaaladdeedu sidan tahay inay halkan cidlada uga dhaqaaqaan. Mid ka mid ah wiilashii ayaa weydiiyey lambarka wiilkeeda si ay ula xiriiraan, isla markaana meesha uga kaxeeyo. Waxay ku tiri, "Wiilkayga wuxuu igu qoray warqadan lambarkiisa." Wiilashii ayaa waraaqdii ka qaaday, balse markii ay fureen warqadii ayay waxay ku arkeen arrin aan lagu farxin. Wiilkeedu wuxuu ku qoray waraaqda, "Qofkii helo haweeneydan waayeelka ah ha geeyo meesha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah." Labadii wiil ayaa isku dayay inay haweeneydii meesha ka soo wadaan si ay u geeyaan meel ammaan ah, balse haweeneydii waa ay diiday. Waxay ku tiri, "Wiilkayga ayaa ii imaanaya, isaga ayaana sugayaa." Maxaa yeelay waxay ku tiri, "Haddii aan halkan ka tago waxaan ka baqayaa inuu igu wareero markuu halkan yimaado." Balse hooyadan maskiinta ah ma oga in wiilkeeda uusan u soo laaban doonin, halkaana uu uga tegay si ay nolosheeda ugu dhammaysato meesha cidlada ah. Waxay bilowday inay ku celcelinaysa ayna leedahay, "Wiilkayga ayaa ii soo socdo, uuna i wadi doonaa, isaga ayaana sugayaa." Markii haweeneydii diiday inay labadii wiil raacdo, ayay halkii isaga tageen. Balse labadii mid ka mid ah waa uu hurdi waayay habeenkii oo dhan, wuxuuna ka fikirayay arrinta hooyadan. Sariirta ayuu ka soo degay, wuxuuna soo qaatay gaarigiisa, wuxuuna soo aaday xeebta. Markii uu yimid meeshii ayuu wuxuu arkay gaari ambalaas ah oo meesha taagan, gaari kale oo booliis ay wataana dhanka kale uu ka taagan yahay. Kadibna meesha ay dad soo buuxsameen. Wuxuu arkay haweeneydii oo sariir saaran, isla markaana naftii ay ka baxday. Kadib markii uu dhiigga ku kacay, walwalkii ay u walwalaysay wiilkeeda ayna ka baqaysay inay dhibaato soo gaarto. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh, gamaylka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.